Bill Gates wuxuu aasaasay Microsoft. Which is a huge indulgence. So those are my two crazy things, yeah. Yeah, there's not. Jack Richard wuxuu aasaasay New Virgin Group. Discussions like this. Mark Zuckerberg wuxuu aasaasay Facebook. I love this place. Microsoft Chairman Bill Gates has given away more than $28 billion, but he's still the world's richest person. Gates is #1 on the Bloomberg Billionaires Index for the first. maanta haddaad isku daydo inaad raadisid dadka ugu hantida badan adduunkan hubaal waxaa kuu soo baxay magacyada aan kuu soo sheegay sida Mark Zuckerberg iyo Bill Gates. raggan oo kaliya kuma guulaysan nolosha balse guusha saxda ay gaadheen ayaa ah inay ka badbaadeen dabinka waxbarashada. ardaygu markuu saa iskool ku yimaado waxaan ahayn ma samayn karo aan ka hayn amarka macalinka oo ay ka mid yihiin raac tilmaamaan fadhiiso soo saar buugaagtaada jooja hadalka oo nolol maalmeedka arday walba uu kala kulmo waxbarashadiisa. ardayga raaca tilmaamaha waxaa la siinayaa warqad cad oo la macnaha wuxuu noqon doonaa mustaqbalkiisa. kan kale oo ku dhaca waxbarashada waxaa laga dhigayaa damiin fashilme aan nasiib aan ku lahayn nolosha baad. arrinka liyaabka weliba naxdinta ayaa markuu waalidka muqalladiisa carruur mid ka mid ah inuu keeno natiijo xun. kii natiijada xun keena inuu el xun ku eego waxay taabto koro kii kalena uu siiyo hadiyad uuna farxad u muujiyo mar walba. ila sawir wiilkaas ama gabadhaas maxay dareemi karaan waxaa laga yaabaa kan asi leedahay wuxuu ka natiijo xun inuu guriga u noqdo tii ay ku tiirsadeen midna waa mudane habeenna maalin bay kariyeen iskoolkii nolosha caadi. in laga baxo dhaqankan ah in iskuul iska jacal iska aado laakiin noloshaada aadan maareyn karin waxbarashada wax laga bedelo dawladda u soo jeesato waxaa is leeyahay wax badan aan qabsoomaayo. Roberto Casque ayaa mar uu TV wareysi siinay ayaa wuxuu yiri iskoolada badan waxay soo saaraan jiil loo tababaray inay noqdaan adoon oo kaliya oo aaminsan in shaqadu hoos taalo in cid loo shaqeeyo. Go to school, get a job, work hard, pay your taxes, and invest in the stock market. Everybody who follows that program is been brainwashed. nidaamka waxbarashada qadiimiga dalal badan ayaa ka xoray oo ay ka mid tahay waqooyiga Yurub, Finland. waa sababta maanta dad badan ugu doontaan Finland waxbarashada. waqti 16 sano ka ma jiro waa ka mamnuuc oo waxbarashada kaliya loo soo xiiso. ma jiro wax qasab ah xorriyadda adiga leh. homework haba sheegin gabi ahaanba imtixaan ma jiro ilaa hal mid mooye. kaasna waa marka uu qofku dhameeyo dugsiga sare. 12 sano iskool iyo 4 sano jaamacad muddadaas ku dhawaad 16 sano ku darso waxaad iska daysay inaad dhex gasho bulshada. waxaad isku xirtay qolkaaga waxaad joogtaysay imaanshaha iyo xifdinta casharada si aan raali kahayn adoo islaha waxaad heli doontaa shahaado qalajin oo digrii ah iyo shaqo fiican. waxaad iibsan doontaa guri weyn waalidka xajka geen waad guursan doontaa carruurta waxaad geen doontaa dalxiiska ugu wanaagsan gaadhi baad iibsan laakiin nasiib xumo ma helin shaqo. shahaadada meel walba waad geysay waa lagu diiday. haddaad tiraahdo shahaadada ama siifiga meel geyso waxaa lagu diinayaa ma taqaanaa qof magac leh oo dawladda ku jira. jawaabtu waa maya. haddaad tiraahdo meel kale shahaadada geyso ajaanib baad joogta oo yaaban tahay. kadib markaan jaamacadda ka baxay waxaan isku dayay inaan shaqooyin badan raadiyo. markaa caqabado badan way jiraan oo shaqooyinka aan la kulmay markaan jaamacadda dhameeyay waayo filashadaan markii hore jaamacaddan ku jiray haystay iyo marse laakiinse weli sidin baan shaqo u raadinayaa. caqabado badan ay jiraan oo ay ka mid yihiin inaanan CV-ga iyo shahaadadii aanay waxba goyn. jawaabtu waa maya. haddaad tiraahdo meel kale shahaadada geyso ajaanib baad joogta oo yaaban tahay. waxaa laga yaabaa waalidkii 16 sano waxbarashada kaa bixinay in lacagta si aad u heli jiro nolosha qoyska ama tan waalidkaas ka xitaa naftaada maanta ma dabari kartid. maanta hadda macna inaan shahaadooyinkan qaadano oo dawladda u shaqeeyno nin ajnabi oo jooga anaga shaqo ma helin. waalidkii 16 sano waxbarashada kaa bixinay in lacagta si aad u heli jiro nolosha qoyska ama tan waalidkaas ka xitaa naftaada maanta ma dabari kartid. waxbarashada waqtigaas soo galaysa maanta koob shaaka kama shuban kartid. dhibka adiga maaha wax badan baa qabata. xaqiiqda ayaa in taariikh muddo laga qarin jiray. hadda waad ogaataa wax walba iyo xaaladdu say tahay kaliya waxaa ku furan laba waddo inay sameeyaan. modern ama marwa labada fin kaliya aad haysatay ayaa kala ah nidaamka waxbarashada qadiimiga oo cadaabta ku dhacday inaad ilmaha sidoo kale aad ku rido ama inaad ilmaha aad ka badbaadiso wadada cadaabta. haddaba ilmaha sida cadaabta uga badbaadin kartaa haddii aad tahay waalid ama aad ahayn ilmaha mustaqbalka bar xirfanoodis wax ka bedeli kartaa. tusaale ahaan maanta waxaa jira kulliyado badan oo si bilaash online ugu jira aad beeri karto xitaa ha noqoto farsamada gacanta sida gaariga loo hagaajiyo sida gaariga loo kaxeeyo leyrka xitaa sida weelka loo sameeyo. mar walba dhiirigeli midnoogo nimad intaa la kaasiin xaashiro cod waxba aan talo bari.